soo dhawaada jaalayaal. sheekadu waxay ku bilaabanaysaa laba askari oo ka tirsan ciidamada cirka Mareykanka, Kate iyo Johnson, kuwaas oo loo diray howlgal ka socda Afghanistan. Shaqadoodu way fududeed, laakiin waa halis. waana inay bombooyin ku tuuraan aag ay ka buuxaan argagixiso. laakiin ka hor intaysan samayn duqeynta, argagixisadu waxay sameeyaan weerar kadis ah. diyaaradaha ayaa lagu soo beegsadaa lana waxyeeleeyaa, taas oo ku qasbaysa in Kate iyo Johnson inay isku soo tuuraan diyaaradaha iyagoo adeegsanaya baarshuud si ay u badbaadaan. markay dhulka ku soo dhacdo, Kate waxay bilaabaysaa inay miyir daboolanto. markaas ayuu Johnson u soo ordaa si uu dib u soo celiyo, wuxuuna wadigaa in argagixisadu dhowaan soo gaari doonaan, sidaas daraaddeedna ay ka dhigtamayd uuna isaga la dagaalamayo iyaga. markii uu Johnson usoo jeesto cadowga, argagixisadu si arxandaraha ayay u toogtaan oo ay u dilaan, laakiin Kate waxay kasii dhigtamayd. markuu mid ka mid ah argagixisada usoo dhowaado si uu u hubiyo inay dhimatay, waxay si lama filaana usoo bixisaa baastoolada, wayna toogataa oo ay dishaa. kadibna meydkiisa ayay gaashaan u isticmaashaa, iyadoo kuwa kalena mid mid u disha. iyadoo cabsi naxyo ku jirta, Kate waxay aadaa meydka Johnson iyadoo ooyeysa, kana xun inuu noloshiisa u horay iyada si uu u badbaadiyo. kadibna waxay hubka ka aroorsataa cadowga dhintay, waxayna u dhaqaaqaa saldhigeeda oo masaafo dheer u jira. intay socotay marar badan ayay isku daydaa inay la xiriirto saldhiga, balse jawaab ma hesho. dhanka kale, hal argagixi ayaa ka badbaaday cadowga, wuxuuna si degdeg ugu yeeraa gurmad, waxaana bilaabma raadinta Kate. si ay u baxsato waxay ku degtaa meel hoos u dhac ah oo ku yaalo qalcad qarsoodi ah, darbiyaduna ay ku qoran yihiin qoraaro raashiyaan ah. Kate waxay isku daydaa inay furto, laakiin ka hor intaysan ku guulaysan, argagixisada ayaa soo gaarta oo rasaas ku furta. sidaas daraaddeedna waxay ku dhuumataa sanduuq ay ku difaacanto. kadib mid argagixisa ah ayaa soo saaray baasuulka, isagoo si toosa ugu beega, iyadoo ka boodaysa gantaalku wuxuu ku dhacaa albaabka bunkarka wuuna furmaa. fursaddan iyadoo ka faa'iidaysanaysa waxay u oradaa gudaha, laakiin weli dagaalku ma dhammaan. argagixisadiina way dabagalaan. gudaha Kate waxay aragtaa jaranjaro hoos usii socota. markay hoos u degto, waxay la kulantaa aragti yaab leh. kan muusan ahayn bunkar caadi ah, balse waa xarun weyn oo qarsoodi ah oo u eg shaybaar. meydad ayaa yaala dhulka, waxaana muuqata in sanado ka hor gaal sun ah uu dila qof walba. waxaa la yaab badan sii ah, Kate weligeed ma maqal bunkar sidan oo kale ah oo gobolka ku yaala. wayna sii socotaa iyadoo aragta calaamado iyo digniino badan oo ruush ah. kadibna miis ayay ka heshaa waraaqado tijaabo ah iyo USB, waxayna ku ridataa jeebka. dhanka kale, argagixisadii gudaha u galay ayaa dareemaya cabsi. markay leexashadaan, dhismihii idil ayaa ifa, waxaana bilaabaa muuqaal argagax leh. derbiyada waxaa ku yaala dhalooyin waaweyn oo ay ku jiraan makhluuqaad waaweyn oo bini aadam u eg, laakiin cabsi badan. Kate waxay ka faa'iidaystaa jahwareerka, waxayna dishaa mid ka mid ah argagixisada, laakiin istarsaasiinta ayaa jebisa dhalo ka mid ah dhalooyinka. makhluuqii ayaana dhaqdhaqaaq bilaaba. markuu istaago, waa bahal weyn oo xoog badan, wuxuuna kala gooyaa argagixiso ku dhex taagnaa ilbaqsiyo gudaheed. laakiin hal argagixiso kale ayaa Kate qoorta hub kaga qabta. saaxiibkiis oo medraad usii jeeda ayaanan ogeyn in bahalku soo toosay. sheekada waxay u boodaa Kabiir, kaas oo markuu arkay bahalka walaalkiis cunaya uu cabsi la soxay, uuna u cararay gudaha bunkarka, isagoo aan ogeyn in Kate ay dishay argagixisadii kale iyadoo adeegsanaysa faleergan. kadibna Kate waxay ku celcelisaa dagaalka iyadoo soo kacaysa, laakiin mid ka mid ah ragga ayaa lugta ka qabta. nasiib wanaagsi, bahalkii ayaa soo noqda oo ninka kala gooya. kadibna Kate waxay ka baxsataa iyadoo dhaawac ah. bahalkan wuxuu isku dayaa inuu dibadda uga soo dababaxo, laakiin albaabku si buuxda ma furna, sidaas daraaddeedna wuu ku xayirmaa. Katena waxay ku ridaa rasaas badan ilaa uu dib uga laabanayo gudaha. kadibna Kate oo dhiig bixisa waxay u baxsataa ilaa wadada. halkaasna waxaa xisig ka mac ku jira gaari ciidanku wato. askartii ay ka mid tahay Jade ayaa ka qaadata silsilada Kate si ay u xaqiijiso aqoonsigeeda. Smearna wuxuu siiyaa biyo ka hor intaysan saldhigga u kaxayn. gudaha saldhigga maalinkii ku xigtay, Kate waxay u sheegtaa Finch oo ah taliyaha saldhigga wax kasta ayuu aragtay, laakiin ma aaminsana. wuxuuna ka qaatay USB-gii. Katena way ka xanaaqdaa oo ay baxdaa dalka dibadda. iyada iyo Jade ayaa ku murma silsilada, balse Smear ayaa soo dhex gala oo silsiladii u celiya Kate. Finchna wuxuu u diraa warbixin saraakiishii ka saraysay. kadib habeenkii, Smear wuxuu u sheegaa Kate in Jade horey u isticmaali jiray daroogo, ciidankuna u qaaday si loo badbaadiyo, halka Finchna uu la dhacayo qaal hore oo shaqadiisa dhaawacay. Smearna wuxuu u geeyay Kate dhakhtarka si lugta looga daaweeyo. sidoo kalena waxaa la qabtay Kabiir. Katena waxay bilaabaysaa inay wareysato kadib markay u qortay ereyadii ruushka ee banaanka bunkarka ku qornaa. Kabiir wuxuu u turjumaa in laga wado hagalin, wuxuuna qirtaa in bunkarku uu xirnaa muddo 30 sano ah. laakiin su-aal weyn ayaa soo baxda, sidee makhluuqaadku u noolaayeen intaasoo sano. dhanka kale, dhalooyinkii kale ayaa furma. makhluuqaad badan ayaa soo baxaya, iyagoona usoo kacaya dhanka albaabka. kadib habeenkii, argagixisa iyo makhluuqaad ayaa weerar kusoo qaaday xerada.
Finch wuxuu ku guuleystaa inuu dilo mid ka mid ah makhluuqaadka, laakiin ciidanku si xun baa loo laayaa. Makhluuq ayaana soo weeraray Kate, laakiin Kabiir ayaa badbaadiyay isagoona ka jaray carabkiisa. Kate iyo Kabiir waxay dib ula midoobaan ciidanka, intii kalena waxay u cararaan konteenar weyn oo ay ku dhunto. Gudaha konteenarka, Kabiir wuxuu uga sheekeeyaa sheekadii tuuladiisa ka dhacday. Comet ayaa ku soo dhacay, Ruushkan wuxuu u yimid inuu qabsado, kadib dad badan ayaa la waayay, meydadna si xun baa loo helaa. Aabihii iyo 46 nin ayaa u baxay inay ugaarsadaan baharka, dibna looma arkin. Subaxdii waxay helaan meydka makhluuqa, waxaase la yaab leh inay ka jiraan xubno bini'aadam, ilkihiisana waxay u egyihiin sida ilkaha libaax-badeed. Finchna wuxuu u sheegaa runta, waxa soo dhacay ma ahayn Comet ee wuxuu ahaa dayax-gacmeed shisheeye. Ruushkan wuxuu rabay inuu tijaabiyo makhluuqaadkana ay yihiin isku darka DNA bil'aadam iyo mid shisheeye. ka hor inta loo diyaar garoobin, makhluuqaadka dhintay ayaa soo kacay oo weerara. Finchna wuxuu isku qarxiyaa makhluuqaadka isagoo naftiisa u horiya asxaabtiisa. Kooxda inteeda kale waxay go'aansadaan inay makhluuqaadka kale soo dhammaystiraan. Kadib markay gaaraan bunkarka, waxay ku tuuraan bam. Markay isku dayeen inay baxaan, silsiladii Kate ayaa ka dhacda, Snare baana u keena. nasiib darasna makhluuq ayaa hoos u jiita, qof walbana wuxuu u maleeyaa inuu dhintay, laakiin Snare ayaa raadiyaha ka soo hadla. Kate waxay go'aansataa inay u soo laabato si ay u soo badbaadiso. inkastoo Snare uusan ogolayn, laakiin ugu dambeyntii way ku adkaystaan, iyagoona hoos u degaya. Amarka duqeynta ayaa imaanaya muddo 20 daqiiqo gudahood. sidaas daraaddeedna waa inay si dhaqsi ah u soo badbaadiyaan Snare. Snare wuxuu dilaa makhluuq soo weeraray. Kabiirna wuxuu ogaanayaa in makhluuqaadkani ay yihiin dadkii tuulada ku noolaa ee la weysanaa. Waxay helaan makhluuqii asalka ahaa ee dayax-gacmeedka ku jiray. Snare wuxuu u yeeraa kooxda inteeda kale inay u soo cararaan hooska wiishka. Markay cararayeen, Jones wuxuu isku huraa albaabka si uu waqti u siiyo asxaabtiisa. Ugu dambeynna wuu isku qarxiyaa, isagoona halkaas ku dilaa makhluuqaad badan. Jedna waxay ku dhimataa dagaalka. Snare ayaa dila makhluuqaadkii, kadibna wuxuu u soo cararaa dhanka Kate iyo Kabiir. qaybta sare, Balquis waxaa soo weeraray argagixiso, laakiin wuu la dagaalamaa. gaarigiisna wuxuu ku dhex dhacaa bunkarka isagoo wiishka jiidayay. halkaasna makhluuqaadkii iyo Kabiir ay ku wada dhintaan. kadib Kate iyo Kabiir waxay ku soo baxsadaan wiishka, waxayna dilaan argagixisadii iyagoona badbaadinaya Balquis. laakiinse weli ma dhammaan. diyaarad dagaal ayaa gantaal ku soo rido goobta, waxayna bilaabaan inay ku baxsadaan gaariga argagixisada, waxayna ku guuleystaan inay baxsadaan. bunkarkii oo dhanna waa la burburiyaa. ugu dambeyntii, saraakiisha Finch waxay raadinayeen USB-gii, laakiin Kate ayaa mar hore qaadatay, wayna baxaan iyada iyo asxaabteeda. ugu dambeyntiina filimka xaggaas ayuu ku soo dhamaadaa.